بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهد سكله أدبان دي السلام يا شيخ دمي هذا الكي إذن كنا دعاء يقدر أنتي هسهيجا لجيسن شرتنا هيسكديسو ماشى قاركتنا مقابل كي كشرنا إسكسارة ما شاء الله بلنتا شيخ وقاضي إن أكو آخر القرآن كعد كيجي وان بلن قاضي ما شاء الله قوبا علماء كم محاضرة سنة إن حوجي جليو ونسوا فيتي ما شاء الله خير كنا ونسوا بحد عادة يقدر ما شاء الله جزاك الله خير الله كوكسوكو الله كورميو جزاك الله خيرا وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ولا ليال إلهي تبارك وتعالى أيها الرئيسية دنبي سوا مهاد اسكاله الله ينوس يرتقليي كلن كان يا عبادة يا جمعا يا جمعة ينكو كلني فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويحوجن يحيلدين معها ووافجين إلهي وحكلو إنه هاد نقيناه وإنه سود وينيناه وجمعة ما أنت إن جلس وقيب قلي ولكن محمد مبارك ومحمد بيك أدمرك ورو تقانين إسقنا وإنه سود وينيناه إله وافجيي طريق الصحدة وعكت سارينا إلهنا وإنه هاد نقيناه isagana dhiiranaantaas iyo go'aan qaadashadaas oo go'aanka qaatay ee mar walba farxadda walaalihii la wadaagayo si gaar ah ugu mahadinaynaa dad fara badan baa waxaan heesaha iyo muusikada ka hadhay laakiin waxaan isaga si gaar ah runtii ugu dhiirigelinayaa uguna ducaynayaa uguna mahadnaqayaa dhiiranaantaas iyo go'aanka cad ee caad ku saarayn ee maxaafisha iyo golayaasha caamka iyo masaajidada uu ka muujinayo si waxa weeyaan looguna duceeyo walaaladeenna kale ka dambeeyana ay ugu daydaan ee runtii waa wax weyn waxaan xasuusanahay muddo ka hor ayaa waxaan dhageystay muuqaal uu soo duubay nin la oran jiray markii hore Axmed Biif imikana Axmed Khayr la yiraahdo daayirtiya dhalinyartu u khudbadeynay ina kaasi oohin iyo ilmo uu hadli kari laa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu intaan dhageysanaya anoo oohinta waan ku daray sababtu waxay ahayd isagoo ka damqanayo ka tiraayay wuxuu soo maray iyo ilaahay sidoo uu karaameeyay iyo khayrkiya jannada uu helay cagta uu galiyay farxadda uu dareemayo iyo wanaaga uu markaa ku jiro iyo wuxuu hore u soo maray dareenkaas ku kalifay indhihiisa ilmadii inuu haysan kari waayo aniguna aan dhageysan kari waayo horta walaalkay Maxamed Mubaarak ilaahay ha barakeeyo waan ugu ducaynaynaa waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku weydiisanayaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare walaalkeen xaqa iyo dariiqa toosana uu doortay Allah ku sugo ilaahay ha ku sugo ilaahay ha ku sugo Allah u ziyaadiyo kuwa ka dambeeyana ilaahay dariiqa uu tusay iyagana Allah ha tuso walaalkeen wuxuu ka soo baxay ee uu ka toobad keenay wax xun buu ahayo ilaahay ka soo saaray khayrna waa soo galay waxaynu ilaahay u weydiinaynaa wax ka wanaagsan rabbi inuu ugu bedelo diin iyo dunyaba wax ka wanaagsan Allah ugu bedelo ilaahay wax ka wanaagsan diin iyo dunyaba rabbi ha ugu bedelo walaalkeen ducada kadib waxaan ka codsanayaa Maxamed Mubaarakow carabkaagi iyo afkii wanaagsanaaye ilaahay kugu arsaaqay ee laga yaabo in fara badan wax kale inay ka soo baxeen horta wixii hore oo dhan dadka inaad ogeysiisood kuna dadaasho in la masaxo inta noloshaada ka hadhayna nicmadu rabbi ku siiyay inaad quraanka geliso inaad diinta geliso inaad u fariisato in badan aanu aragna Maxamed Mubaarak oo kullu qaynaya hadalka ilaahi jalla jalaalu inaan aragno Maxamed Mubaarak oo halka mixraabka nagu tukanaya quraanka rabbi oo qalbigeyga nagu qoynaya taasaan ilaahayna ka rajaynaynaa adigana aan kugu waaninaynaa masaajidkeena Rashiid waanu kugu soo dhawaynaynaa gelinka hore dowra ka socota habeenkii 10 ka socda hadiya habeen waxba lagu bartaa waqtigaagii badnaa inaad wax kamida diinta u jarto macallimiin gaar ah hadaad u baahato waanu ku diyaar gareynaynaa inaad quraanka fahamkiisa alfaadiisa macaanidiisa aad waqti badan geliso ayaanu rajaynaynaa kulligeen dad muslimiin aan wada ahayn kuwa shayaadiinta ah ee ka dhigaya Maxamed in imika la muslimiinayana waxaanu leenahay Maxamed Mubaarak horeysiya dambeysaba muslim buu ahaa
idinka laftiina kuwa fanka ku jira muslimiin baan idin aaminsanahay gaala ma tihidin laakiin muslim dambaabuun baa too lagu leeyahay war dambiga ka soo noqo waxaan leenahay maxamedna kuwa waxba dhaka u dhigin xaqu xagxagasho badan iyo cadaawad badan buu leeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii la soo saaray khadiiji intay ka xaysay waraqa ibn nawfal u geysay oo ahlu kitaab ahaa ayaa markuu nabi maxamed u waramay wuxuu arkay waa bilowgii waxiga ee uu gartay waraqa in nabi maxamed la soo diro waxyigii uu yahay wuxuu yiri lam yaati ahadun bimithli ma jiita bihi illa uudi wuxuu yiri maxamedow waxaad la timid cid horta lama iman illa waa la colaytay u diyaar garow waa diyaar garow marka maxamed waxaynu leenahay qof kasto tubta toosan iyo dariiqa xaq qaada cadaawad badan buu la kulmayaa dacaayad badan buu la kulmayaa dhag jalaq hawsin waxaanad aamintaa ood ku qalbi qabowdaa ilaahay markuu tilmaamay cadaawadda ambiyada wuxuu ku gabagabeeyo uu yiri wakadalika jacalna likulli nabiyyin aduwwan min almujrimiin nabi kasta waxaan u yeelay kuwa cadow oo mujrimiin oo xuma falayaala waa kuwa shaqada shaydaanka haya laakiin waxaad waxaad kaga bogsataa ood kaga aamin noqotaa wakafaa birabbika haadiyan wa nasiira waxa lagu gabagabeeyey nabi maxamedow ilaahay baa kuwa kaaga filan ku hanooninaya ku heelinaya maxamed mubaarago waxaanu ku leenahay wakafaa birabbika haadiyan wa nasiira hadday hadalka kugu badiyaan rabbi baa kugu filan oo sharkooda kaa kaafinaya u adkayso wakhtigaagana qur'aanka iyo diinta geli waanu ku soo dhawaynaynaa waananu ku ducaynaynaa adiguna wixii waana walaalada la wadaag allah ku barakeeyo barakallahu fiika ya mubaarak lillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ولا ليال إلهي تبارك وتعالى أيها الرئيسية دنبي سبا مهادس كله الله إنه سورتقليي كلن كان يا عبادة يا جمعا يا جمعة إنه كلني فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويحوجن يحيلدنا معها ووافجن إلهي وحكلوا إنه هاد نقينا وإنه سود ويننا وجمعة ما أنت إن جلس وقيب قلي ولكن محمد مبارك ومحمد بيك أدمرك ورو تقانين إسقنا وإنه سود ويننا إله وافجي طريق الصحدة وعكت سارينا إلهنا وإنه هاد نقينا isagana dhiiranaantaas iyo go'aan qaadashadaas oo go'aanka qaatay ee mar walba farxadda walaalihii la wadaagayo si gaar ah ugu mahadinaynaa dad fara badan baa waxaan heesaha iyo muusikada ka hadhay laakiin waxaan isaga si gaar ah runtii ugu dhiirigelinayaa uguna ducaynayaa uguna mahadnaqayaa dhiiranaantaas iyo go'aanka cad ee caad ku saarayn ee maxaafisha iyo golayaasha caamka iyo masaajidada uu ka muujinayo si waxa weeyaan looguna duceeyo walaaladeenna kale ka dambeeyana ay ugu daydaan ee runtii waa wax weyn waxaan xasuusanahay muddo ka hor ayaa waxaan dhageystay muuqaal uu soo duubay nin la oran jiray markii hore Axmed Biif imikana Axmed Khayr la yiraahdo daayirtiya dhalinyartu u khudbadeynay ina kaasi oohin iyo ilmo uu hadli kari laa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu intaan dhageysanaya anoo oohinta waan ku daray sababtu waxay ahayd isagoo ka damqanayo ka tiraayay wuxuu soo maray iyo ilaahay sidoo uu karaameeyay iyo khayrkiya jannada uu helay cagta uu galiyay farxadda uu dareemayo iyo wanaaga uu markaa ku jiro iyo wuxuu hore u soo maray dareenkaas ku kalifay indhihiisa ilmadii inuu haysan kari waayo aniguna aan dhageysan kari waayo horta walaalkay maxamed mubaarak ilaahay ha barakeeyo waan ugu ducaynaynaa waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku weydiisanayaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare walaalkeen xaqa iyo dariiqa toosan ee uu doortay allah ku sugo ilaahay ha ku sugo ilaahay ha ku sugo allah u ziyaadiyo kuwa ka dambeeyana ilaahay dariiqa uu tusay iyagana allah ha tuso walaalkeen wuxuu ka soo baxay ee uu ka toobad keenay wax xun buu ahayo ilaahay ka soo saaray khayrna waa soo galay waxaynu ilaahay u weydiinaynaa wax ka wanaagsan rabbi inuu ugu bedelo diin iyo dunyaba wax ka wanaagsan allah ugu bedelo ilaahay wax ka wanaagsan diin iyo dunyaba rabbi ha ugu bedelo walaalkeen ducada kadib waxaan ka codsanayaa maxamed mubaaragow carabkaagi iyo afkii wanaagsanaaye ilaahay kugu arsaaqay ee laga yaabo in fara badan wax kale inay ka soo baxeen
horta wixii hore oo dhan dadka inaad ogeysiisood kuna dadaasha in la masaxo inta noloshaada ka hadhayna nicmaduu rabbi ku siiyey inaad qur-aankaa geliso inaad diinta geliso inaad u fadhiisato in badan aanu aragno maxamed mubaarak oo ku luuqaynaya hadalka ilaahay jalla jalaaluh inaan aragno maxamed mubaarak oo halkaa mixraabka nagu tukanaya qur-aanka rabbi oo qalbigayga nagu qoynaya taasaanu ilaahayna ka rajaynaynaa adigana aan kugu waaninaynaa masaajidkeennan rashiid waanu kugu soo dhawaynaynaa gelinka hore dowraa ka socota habeenkii casharaha ka socda hadhiya habeen waxbaa lagu bartaa wakhtigaagii badnaa inaad wax ka mida diinta u jarto macallimiin gaara haddaad u baahato waanu kuu diyaar garaynaynaa inaad qur'aanka fahamkiisa alfaadiisa macaanidiisa aad wakhti badan geliso ayaanu rajaynaynaa kulligeen dad muslimiin aynu wada ahayn kuwa shayaadiinta ah ee ka dhigaya maxamed in imika la musliminayana waxaanu leenahay maxamed mubaarak horraysiya dambaysaba muslim buu ahaa idinka laftiinna kuwa fanka ku jira muslimiin baan idiin aaminsannaho gaala ma tihidin laakiin muslim dembaabuun baa too lagu leeyahay war dembiga ka soo noqo waxaan leenahay maxamedna kuwaa waxba dhaka u dhigin xaqu xagxagasho badan iyo cadaawad badan buu leeyahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii la soo saaray khadiiji intay kaxayso iyo waraqa ibnu nawfal u geysay oo ahlu kitaab ahaa ayaa markuu nebi moxamed u warramay wuxuu arkay waa bilowgii waxyiga ee uu gartay waraqa in nebi moxamed la soo diro waxyigii uu yahay wuxuu yidhi lam yaati axadun bimili maa ji'ta bihi ilaa cuudi wuxuu yidhi moxamedow waxaad la timid cido hortaa lamay iman ilaa waa lala colaytamee u diyaargarow waa diyaargarow marka maxamed waxaynu leenahay qof kastoo tubta toosan iyo dariiqa xaqa a qaada cadaawad badan buu la kulmayaa dacaayad badan buu la kulmayaa dheg jalaq hawsiin waxaanad aamintaa ood ku qalbi qabowdaa ilaahay markuu tilmaamay cadaawadda ambiyada wuxuu ku gebagabeeyo uu yidhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin nebi kasta waxaan u yeelnay kuwa cadow oo mujrimiin oo xumafalayaala waa kuwa shaqada shaydaanka haya laakiin waxaad kaga bogsataa ood kaga aamin noqotaa wakafaa birabbika haadiyan wanasiira waxaa lagu gebagabeeyey nebi moxamedow ilaahay baa kuwaa kaaga filan ku hanooninaya kuu hiilinaya maxamed mubaarago waxaanu ku leenahay wakafaa birabbika haadiyan wanasiira hadday hadalka kugu badiyaan rabbi baa kugu filan oo sharkooda kaa kaafinaya u adkayso wakhtigaagana qur'aanka iyo diinta geli waanu ku soo dhowaynaynaa waananu ku ducaynaynaa adiguna wixii waana ah walaaladaa la wadaag allah ku barakeeyo baaraka allahu fiika ya mubaarak بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهد سكله أدبان ذي السلام يا شيخ دمي هذا الكي إذن كنا دعاء يقدر أنتي هسهيجا لجيسن شرتنا هيسكديسو ماشى قاركتان مقابل كي كتشرنا إسكسارة ما شاء الله بلنتا شيخ وقاضي إن أكو آخرية قرآن كعد كيجي وان بلن قاضي ما شاء الله قوبا علماء كم محاضرة سنة inaan xoogayga geliyo waan u soo feeytay ma sha Allah khayrkana waan u soo banbaxay ducada igu dara ma sha Allah jazakallahu khayr Allah kugu sugo Allah ku rumeeyo jazakallahu khayran wa barakallahu fiik wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh